السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا مركلة iyo barnaamij kale oo xiiso badan oo aad ka bogan doontaan باذن الله. waa oraahyo iyo xikmado laga qoray Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil. aqoonyahanku wuxuu aqoonyahan yahay markuu rabbigiina yaqaano, aakhirana yaqaano, adduunkan uu isbedel ka sameyn karo. dhalasho wacan markaan leenahay taas macnaheedu waa sanad baan xabaasha u dhawaaday. taasi ma waxa lagu farxaa inaad noqoto qof hami leh, han leh, hiigsi leh oo hiiraal u muuqdo waa lagama maarmaan. dad baa dibadda ka qurux badan, guriga markay soo galaanna bahal ah. qofkaad nolosha isku darsateen iyo caruurtaad dhashay inaad ku xumaato dibaddana nin fiican oo laga yaqaano hebel la yiraahdo noqotid wax fiican ma aha. aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo, suldaanadu iibsan karto, dowladuhuna laaluushi karaan, aqoonyahan ma aha. gool baa la dhaliyay, maxay noloshaada kusoo kordhisay? in hooyo la noqdo waxay ka qurux badan tahay inaad noqoto injineerad. nin waliba qabiilkiisa inta la dulmiyay buu ogyahay, laakiinse ma oga intay dulmiyeen oo ay aakhiro u direen. qur-aanka haddii aad akhrido qof rabbigii u warmaayo ayaa tahay, bal qiyaas rabbiga oo kula hadlaaya oo ku warmaaya. luqadda Soomaaliyeed waa af muslim, waa af diin iyo dadnimo xambaarsan. meesha qiimaha leh ee u baahan inaan u shaqaysano waa aakhiro. haddaad rabto in caqligooda ku aqbalo, waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furato. qofkaad qalbigiisa furi kari weydana caqligiisana ma furi karaysid. qalbigana waxaa lagu furaa jacayl, naxariis iyo hadal wanaagsan. waxaa laga yaabaa inaad saacado badan ku bixiso iskuulka yaad saaqidin. oo ka waran maalinta qiyaame haddaad saaqido, maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin. dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar. hadday jannadu tahay meesha qofka loogu nimceynayo, cadaabtuna tahay meesha qofka lagu ciqaabayo, adduunyaduna waxay tahay meesha qura ee la isku imtixaamayo. ilmaha inaad guri uga tagto waxaa ka qiimo badan inaad diin uga tagto. inaad dhaqaalo u sameyso waxaa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslim ah. haddii uu qof muslim ah noqdo oo naftiisa ku kalsoon, meel uu seexdo iyo waxa uu cuno isaga raadsanayo. jaamacad baan ka baxay, shahaadaan qaatay, shaqo fiican baan helay. war waad tagaysaaye waxaas oo dhan waa maalmo. maalin ama maalin barkeed ayay nolosha kula noqon marka qiyaamaha lagu weydiiyo. oo nolosha ma maalin barkeed baad dooratay marka